munaasabadan oo ahayd mid lagu soo bandhigayay buug laga magac baxay qabyaaladiid qarandoon oo uu qoray qoraaga da'da yar ee Nasteex Aadan Cabdi. Qabyaaladiid ayaa waxaa habeennimadii xalay ahayd lagu soo bandhigay hoolka weyn ee Taakulo ee degmada Caabudwaaq. xafladan oo ahayd mid si qurux badan loo soo xardhay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug, maamulka degmada Caabudwaaq, aqoon-yahano, dhalinyaro, haween iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Caabudwaaq. ugu horreyn waxaa xalfadani daahfuray madaxa arrimaha bulshada ee degmada Caabudwaaq, Muuse Maxamed Axmed Muuse Inji, isagoona ka warbixiyey ahmiyadda uu leeyahay buugani, dhanka kalena ka warramay horumarka ay magaalada Caabudwaaq ka gaadhay dhanka qorista sanadihii u dambeeyey, isagoona sheegay in magaaladu ay marba markii ka dambaysa ay magaaladu ay ku kala tartamayso dhinaca horumarka. saad halkaan arkaysaan oo xafladda ku xusan tahay waa daahfurka buugga uu qoray Nasteex oo xambaarsan aragtiyo kala duwan oo dhinacyada bulshada la xiriira, doonisteeda la xiriira, diidmadeeda la xiriira, danaheeda la xiriira. sababtay tahay qofka aadamiga ahi waa doone, waa diide, waa qaate, waa celiye. marka qof walbaba jaha uu u socdo iyo jaha uu ka yimaado ayuu leeyahay. marka buuggaas waxa uu xambaarsan yahay iyo waxa uu ku saabsan yahay qoraaga ayaa halkaan soo dhigahaya. aniguse waxaan ka qabsanayaa slogankiisa guud ah jooji qabyaaladda, jooji daraysiga, jooji maamul xumada, jooji isku dirka, jooji cadownimada, jooji kala kaxaynta, jooji dad isku diridda. Nasteex Aadan Cabdi qabyaaladiid oo ah qoraaga buugani ayaa goobta su'aalo lagu weydiiyey ku saabsan buugani, isagoona halkaasi kaga jawaabay. waxaana ka mid ahaa su'aalihii la weydiinayay iyo weliba jawaabihiisii. intaasna wax buugana wax ka fahmay gabaygu ku qoran yahay su'aashii marka waxay tahay maxaa hadal caadi uga buuxiyey gabaygu u qoran maadaama dadka gabayga aqriyihiin dadka hadalka caadiga aqriyana iska badan yihiin saddex jeer dadka gabayga aqriya waa heer la gaaro darajo sare ah. hal abuur Soomaaliyeed baan u ahay, haddana waxaan ahay qoraa, waxaana qoraa maasada iyo xigmadda. buug badan oo qoraa waa jiraan oo soo baxay, waan ka hadda buug oo suugaanta ku saabsan weeyaan. ilaa 3 buug ka tan warjin insha Allah inay soo baxaan dhawaan. waxaan qoraa data qofka qoraaga markuu qoriyo inta badan waa data primary iyo secondary inta badan la dhahaa, laakiin asadaan afsamaana u jawaab. ugu dambeyntii bulshadii kala duwaneed ee goobta ka soo qayb gashay oo iskugu jidhay aqoon-yahano, dhalinyaro iyo weliba marti sharaf kale ayaa goobta ka hadlay, ayagoona sheegay inay mar walba aad u soo dhoweynayaan dhinaca horumarka qorista buugaagta ee dhalinyarada degmada Caabudwaaq. waxay dhanka kalena ka warbixiyeen muhiimadda oo uu leeyahay dhalinyarada buugani qabyaaladiid. run ahaantii haddii aan nahnay bahaweynta jaamacadda ummadda Soomaaliyeed farxad weyn ayay noo tahay. Nasteex oo ka tirsan ardayda jaamacadda ummadda Soomaaliyeed faraca Galmudug in maanta aan ka soo qayb galno buuggiisi koowaad oo ku soo bandhigayo hal-abuurkiisa oo uu kaga hadlayo qabyaaladda iyo qarannimada. uu ciwaan ooga dhigay qabyaaladiid iyo qarandoon. dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. marka xigta waxaan hambalyaynayaa Nasteex qabyaaladiid oonu waqti macaan soo wadahay. waxaan ku tilmaami karaa runtii Nasteex intaan ogahay dhalinyarta ama jaamacadda dhigata ama macallimiinta ah ee deegaanka jooga waa shakhsiga kaliya arkay ee aad ka firfircoon raadiyana meel kasta cilmi ugu kordhi karo. qabyaalad haddaan iga sheekay waxay tahay qabyaalad waa mid Caabudwaaq yarta oo adduunka markii la dhaho adduunku waa 5 qaaradood. waxaan ku noolaa qaaradda Afrika, geeska Afrika ka siinahay, Soomaaliya ka siinahay, gobol Galguduud baa ka siinahay, waqooyiga Galguduud xuduudda ka siinahay, Caabudwaaq baa siinahay.
caawud waaqdaasba waxay rabtaa inay 20 u qaybiso qabyaaladdu ma waxuma 20 ha u qaybisay waxay rabtaa haddana 20 kaas midba midka kale inuu dilo dadkii igu horeeyaa waxyaalo badan ka soo hadlay qabyaaladuna inay tahay waxaan noo roonayn inaan qaranka doonana ay fiican tahay kaliya waxaan soo istaagay inaan u mahadnaqo dhammaan dhalinyaradii ka qayb qaadatay xafladan aadka u qurux badan waxaan kaloo aad iyo aad u dhiirigelinaynaa walaalkeen qabyaaladiid oo runtii ah qofka ugu firfircoon haddaan fiiriyey magaalada Caabud Waaq oo runtii waxyaalo badan ka qayb qaatay sida inta Sumbuuga xitaa soo bandhigin sameeyay badan oo uu ku tagayo iskuulaadka magaalada uu ku dhiirigelinayo ardayda inay qabyaalada iska daayaan muddo dhowr bilood gudahood ayaa Caabud Waaq waxaa lagu soo bandhigay buugaag fara badan iyadoona ay noqonayso magaaladani mid mar walba ku horeysa dhinaca tacliinta iyo qorista Mahad Bashiir Xilif telefishinka caalamiga ah Somali News wararka waqooyi galgaduud degmada Caabud Waaq